بين واتفشلنتي حسن معلم قرقورتا كوكو كرقو بيست كتك ماشا استغتك ماشا sababtu ay tahay maakadaadii yaa la cunaqabateeyay dadkaadii 2 milyan oo qof ka badan ayaa Jubbaland ku nool oo la cunaqabateeyay oo la baabaashay shalayna Puntland ayaa la cunaqabateeyay oo og tahay isaga tag meesha Xamse isaga tag marada ka dhacday waxaan la hadlayaa beesha habar gidiray jinni nikin keena baxshalay xasan adinka keenay nimanka keena waa la yaqaan waa maxamed xuseen rooble dhaban cad ardi qaybtiid fiqi oo dagaalamayay oo dal jirahay waxa keenay maxamed salaad waxa keenay ninka la yiraahdo Odawaay waxa keenay ninka la yiraahdo Abshir Bukhari waxa keenay Saabir adinka dagaalamayay xasan waa waraabana wax ma reebo dadkii u barakiciyay dalkii u xaraashtay xarakii Soomaaliya ku dawarsaday bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ilaahay baa mahad u sugnaatay aan la soo koobi karin 2025 bishii February oo maanta 27 maantana ay tahay maalin khamiisa halka kan waxaan ka soo jeedinayaa anigoo ah Cabdullaahi Maxamed Jumcaale oo Soomaaliyeed wixii dhacayay waayahan oo muddo badan ba ka soo hadlay 2022 bishii Juulaay 22keedii baan ka hadlay arrinka Soomaaliya ayadoon wasiir la dhisin waxaan yiri Xasan Macalin Gurguurto waxaad soo wado oo rabta inaad Soomaaliya dawlad uga dhigta ka jooji ayaan kugu iri mana aada yeelin wixii aan ka digayaad keentay waxa aad keentay waa waxaan ku oranayn xagaad u socotaa wax ku oranaya ma aada keenin waxaad keentay waxaan ku oranayn xasan diyaaradan aad saarantahay maxay tahay ka tag ee dalka wax ka qabo xasan arrintan aad wado arrinkaana ka fiican yeel waxaan ku oranayn ayaad xukuumad ka dhigtay maanta Soomaaliya maalin ay ka nasiib darantaa Sooma marin aad ayay u nasiib darantay waxa keenana waxa weeye nin kaliya ma dawladda u noqdaa iyo ilmihiisa iyo xaasaskiisa nin kaliya iyo caruurtiisa iyo xaasaskiisu ma dawladda ay noqdaan nin kaliya iyo xaasaskiisa iyo caruurtiisu ma dawladda ay noqdaan waa maya waxaan ka hadlayaa ninka la yiraa wiil la leeyahay waxa uu joogaa waa agaasime oo la leeyahay wasaaradda duulista iyo hawada uu joogaa oo la leeyahay waxa la yiraa Bashiir Macalin Cali ayaan dhaweed waxa uu yiri qofkii Itoobiya la hadla xil kasta ha hayo magac kasta ha lahaado waa dambilow yiri haye ninka u gurguuraha Itoobiya oo Itoobiya leefleefa adeerow Bashiir Macalin Cali oo ma ka hadashid Bashiir Macalin Cali oo ninka Itoobiya leefleefa oo adiga adeerka Xasan Macalin Gurguurte ma ka hadashid shalay daldan oo koonfur galbeed la yiraahdo tiri waxa meesha ka jira waa waclo ayaa tiri ninka markay oromada iyo maxaarada iyo leefleefa maad ka hadashid
asaga xasan macalin gurguurtaana maxuu dhihi jiray cadow aan Itoobiya ahayn malihin ayuu dhihi jiray maantana maxuu leeyahay saaxiib iyo walaal aan Itoobiya ahayn malihin ayuu maanta leeyahay uma dhaxaydo 6 bilood markuu sidaa lahaa ummadda Soomaaliyeed caalamkana iga marqaatay waxaan sheegaana waa run dadku haddaysan run rabin ayaday u taallaa saakay abi axmed ayaa xamar tagay oo khamiisa waxaan rabaa inaan ummadda Soomaaliyeed u sheego inaan xasan wax mabda lahayn xasan mabda ma leh xasan mabdiisu waajibka wixii geli waa wixii meel loo raacana male mabda'na male dal iyo dadna laguma aamini karo ninka dalka iyo dadka laga gaaro abi axmedna waa xararay aeroboortka hoobiyaa lagu garaacay waxa ku garaaca ma ahan argagixisadii waa ciidamada oo asaga xol aan rabin ayaa ku garaaca aeroboortka maanta oo dhan ay garaacayeen abi axmedna waa iska xararay markuu ogaaday meeshu inay tahay meel lagu hoyar karin ay tahay oo dadkii oo la garaaca aeroboortka waa ka xararay wuxuu yiri haddaad sii joogto ama adaa lagu gudaya ama diyaaradaaba lagaaga guba aad wadato qodobka markaan ka baxo waxaan la hadlayaa baarlamaanka Soomaaliya war baarlamaanka Soomaaliya dalka badbaadiya war dalku waa tagay war baarlamaanka Soomaaliya ninka in la hadlaa waa Cabdullaahi Maxamed Jimcaale oda Soomaaliyeed war mid ha loogu tuuro war dalka badbaadiya dalku waa tagay 30 kilomitir ayay u jirtaa balcad xamar 30 kilomitir ay u jirtaa argagixisadii asaaka soo weerartaastay dadna ku laayeen saldhigii qabsadeen dadkii xabsiga ku jiray ayay ka daayeen oo ogtihiin baarlamaano wax jooga ma leh dalka haddaan ninkan laga soo gaarin argagixisada qabsane haddaan ninkan dalka laga gaarin waayo dal ma daafici karo waayo diyaarad ka tegi maayo baarlamaano dalka badbaadiya dalku waa tagay war dalku waa tagay baarlamaano dalka badbaadiya waxaan kaloo la hadlayaa ninka la yiraahdo Xamse Cabdi Barrow idagayso qabiilkii aad ka dhalatay oo daarood waa ku diideen qabiilkii Xamse Cabdi Barrow aad ka dhalatay oo daarood waa ku diideen waayo waxba lama joogtid Xamse Cabdi Barrow ilaahay baan kugu dhaarshay 2 bilood ayaa Jubbaland una qabataysantaa oo diyaaradihii loo diiday oo la hortaagay oo darraado ugu dambeeyay xildhibaanadii aadayay loo diiday oo wax diyaaradu aysa tagayn doolaw oo diyaaradu gada tagayn oo diyaaradu Kismaayo tagayn oo dadka jiran meel loo qaadan lahayn oo kuwa soo taga oo booqanaya dadkoodii oo xamar ka soo taga ama meel kale ka soo tagaysa diyaaradaysa waad ka hadli weyday meeshii laga soo doortay iyo meeshii ra'iisul wasaaraha ku noqotana waa meesha la yiraahdo Jubbaland wax badan ka xishooday iscasil hortag baarlamaanka sabtiga iscasil marada ka dhacday mara kuguma xirra Xamse jinnaan ku galaa siyaasadda waa been waad fashilantay xasan macalin gurguurtaa kugu kor qubaystay ka tag meesha isaga tag meesha sababtu ay tahay maatadaadii yaa la cuna qabateeyay dadkaadii 2 milyan oo qof ka badan ayaa Jubbaland ku nool oo la cuna qabateeyay oo la baabaashay shalayna Puntland ayaa la cuna qabateeyay oo og tahay isaga tag meesha Xamse isaga tag marada ka dhacday waxaan la hadlayaa beesha habar gidiray
jinni ninkiin keenaa baxshaa la yidhi xasan idinkaa keenay nimanka keena waa la yaqaan waa maxamed xuseen rooble dhaban cad cabdi qaybdiid fiqi oo dagaalamayay oo dal jirahay waxaa keenay mahad maxamed salaad waxaa keenay ninka la yidhaha odawaay waxaa keenay ninka la yidhaha abshir bukhaari waxaa keenay saabir adinkaa keenay adinkaa dagaalamayay xasanna waa waraabana wax ma reebo dadkii u barakiciyey dalkii u xaraashtay calankii soomaaliya u ku dawarsaday wax alla waxu hayaa ma jiraan ciidanka laga soo waday galmudug ee la yidhi waxay ka dagaalamayaan hiiraan iyo gobolka la yidhaah muxuu ahaayey gobolka shabeellada dhexe war waddankiinni ya shabaab ou hareeraha ka degan yahay war ciidankiinu yow macno darra ku baabi'in habargidirey war ciidankiinu yow macno darra ku baabi'in hadduu meel ku baaba'aa waa inuu ku baaba'a deegaankiinni nimanka degan gobolka shabeellada dhexe ayaa laga rabaa iyo nimanka hiiraan degan inay daafacaan ayakaa laga rabaa adinkana waxaa laynka rabaa inaad mudug iyo galgaduud daafacdin qolo walba maadaama dowlad la waayo oon dowladu jirin qolo walba deegaankeeda inay daafacdaa la rabaa wiilashaa meesha yaan lagu laynin war wiilashaa meesha yaan lagu laynin war wiilashaa hala celiyo war wiilashaa hala celiyo haddaan la celinayna meeshii kaloo lagu badbaadi karo hala geeyo waxaan kaloon ku dardaarmayaa dardaarankaygan galaa soomaaliya farad allah u furo soomaaliya farad khayr qaba allah u furo waxaan allah ka hor wareejiyo si degdeg allah uga hor wareejiyo wax ka khayr badan allah ku soo bedelo wax ka khayr badan allah ku soo bedelo ilaahu aamiin ilaahu aamiin ilaahu aamiin ilaahu mid Soomaali aan kala dirin oo kan Soomaali waa kala diraye Soomaali mideeya oo isku jiida oo xaq ilaahay ku dhaqa oo sharaf leh oo dawarsanayn oo diyaarad saarnayn ilaahay Soomaaliya ha soo diro war Soomaaliya ha walaalowdo war Soomaaliya ha walaalowdo gacnaha la isqabsado argagixisada isku meel looga soo jeesto hanala dalkana hala badbaadiyo Soomaaliyana dib u heshiisiin weyn loo furo oo dawlad loogu dhiso Soomaaliya dawlad u kama jirto hadii xalab balcad la qabsaday oo afgooyo la hareeraysan tahay oo xamar hareeraysan yahay oo jawhar laga qaxay oo meel la wax la hayo la arag oo cadala iyo dhulkii ka dhaxay aadaya lagu kala cararay waxba lama hayo dalka hala badbaadiyo meeshana laga kaco anigoo ah Abdullaahi Maxamed Jimcaale oo Soomaaliyeed sidaasaan ku dardaarmay hana warkaygana qaata qof ha u tuuro caalamka loo sheer gareeyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu